بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن كسر هذا برنامج كنعسيقة تضبط كان برنامج كوحان كالنا كشامبورتا كنعسيقة سيدا أن تضبط كورسوش شغني دوني دا مانتا شقادة أووين إلا هايو وكنعسيقة مركا waxay u baahan tahay in la helo hay'ado caalami ah kuwa oo ka shaqeeya horumarinta ganacsiga badqabkoodana qayb ka noqda marka laga soo tago hay'adaha waaweyn ee ganacsiga ee dunida ka jira waxaa jira wadamo saaxiibo ah iyo kuwa xuduudo leh kuwa oo leh hay'ado ay ku midaysan yihiin wadamadooda kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah hay'adda nafta OPEC SARS EFTA iyo LEFTA waxa ay ka mid yihiin hay'adaha ugu waaweyn ee adduunyada ka jira gaar ahaan kuwa goboleedyada dhanka kale waxaa jira dhowr urur oo caalami ah kuwa oo isku raacsan yahay adduunka oo dhan ay ka shaqeeya kuwa ugu caansan ee aan soo qaadanayna waxa ay yihiin kow ururka ganacsiga adduunka labo banka adduunka saddex hay'adda lacagta adduunka haddii aan ku hormarno ururka ganacsiga adduunka marka magaca loo soo kaabiyo waxa loo yaqaanaa WTO waxa la aasaasay sanadkii 1995 waxa uu ka shaqeeyaa dhowr shaqo oo kala ah kow in uu xukumo ganacsiga adduunka labo in uu ka shaqeeyo yareynta canshuurta xad dhaafka ah ee ganacsiyada laga qaado saddex ka shaqeynta si xor ah in ay ganacsiyada adduunka u shaqeystaan afar helidda dhaqaale si xor ah loo shaqeystay taas waxa ay qayb ka noqonaysaa in ganacsiyada adduunka ay helaan meel ay ku shaqeysan karaan gaar ahaan suuq xor ah waxaa jira faa'iidooyin lagu qabo ururka ganacsiga adduunka waa ay badan yihiin kuwa ugu caansan waxa ay yihiin kow waxa uu xalliyaa khilaafaadka marka dood ka timaado canshuuraha xuquuqda daabacaadda tacabka cayriinka ah iyo dhoofinta badeecadaha kala duwan waxaa mar walba dhasha doodo ka dhasha arrimahaasi marka doorka ururka ganacsiga adduunka waxa uu yahay in uu xalliyo isku soo dhaweyn ka sameeyo khilaaf kasta oo keeni kara in ganacsigaasi uu wiiqmo labo ka shaqeynta ganacsi xor ah marka ganacsi xor ah la helo waxaa hoos u dhaca qiimaha maciishada taana waxa ay dan u tahay qof waliba oo dunida ku nool saddex waxa uu dhiirigeliyaa dakhliga iyo shaqooyinka mar waliba ururka ganacsiga adduunka waxa uu ka shaqeeyaa sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiyada cusub ee la furayo si shaqooyin badan loo helo dakhliga wadamadana uu kor u kaco afar wuxuu dunida ka dhigaa mid degan shan waxa uu wadamada baraa xukunka wacan hay'adda labaad ee kaashaanbuur ganacsi waxa ay tahay banka adduunka sanadkii 1944 ayaa la furay waxa uu ka shaqeeyaa sidii wadamada caalamka uu u siin lahaa deeman aan lahayn dulsaar waxa uu qayb ka noqdaa horumarinta warshadaha wadamada marka wadamada warshadaha ay kor u qaadaan waxa bata wax soo saarka wadankaasi iyo shaqo helidda dadkooda hay'adda saddexaad ee kaashaanbuurta ganacsi waxa ay tahay hay'adda lacagta adduunka ee marka la soo kaabi loo yaqaano IMF waxa la aasaasay sanadkii 1944 waxayna qabataa shaqooyin dhowr ah waxaana ka mid ah kow in ay caawiso kobaca ganacsiga adduunka labo waxa ay kor u qaataa wada shaqeynta lacagaha adduunka saddex waxa ay qayb ka noqotaa ciribtirka sarifka lacagaha qalaad dhibaatooyinka ka yimaada dhanka kale waxaa jira shirkado loo yaqaano shirkadaha qaramada badan oo afka qalaad ku noqonaya multinational corporations waa shirkado caalami ah kuwa oo wadamo badan ku yaala waxaana qayb ka ah kow Philips Coca-Cola Pepsi KFC IBM iyo kuwa kale oo badan sidoo kale waxaa dhacda mararka qaar in shirkado waaweyn badeecado ay soo saareen ay gaaraan adduunka meel walba iyaga oo aan xarumo ku furan taana waxay qayb ka tahay qaramada badan shirkadaha adduunyada saameynta ku yeelanayaan shirkadaha qaramada badan ee multinational corporations ee adduunyada ka shaqeeya waxa ay maalgelin ku sameeyaan wadamada ay ka furanayaan xarumaha cusub waxay u gudbiyaan adeegga technology ee dunida maanta ka shaqeeyo
waxa ay shaqaaleysiiyaan dadka ku nool waddanka ay degeen. ujeedooyinka shirkadda qaramada badan waxaa ka mid ah kow dhaqaalaha ku baxaya shaqaalaha. marka shirkadaha waaweyn ee wadamada horumaray leh ay soo degaan wadamada Afrika ama Asia waxa ay helaan shaqaale aad u jaban lacagta ay ku shaqeynayaan, sidoo kale waqtiga ay ku shaqeynayaan uu yahay mid aan xadidneyn, taa ku adag tahay inay ka helaan wadamada laga leeyahay shirkadahan. sidoo kale mararka qaar waxa dhacda in tayada shayga ay iibiyaan ay hoos u dhimaan, taasna ay ku helaan lacag badan oo ka bixi lahaa inay u badbaaday. labo helidda alaab ceeriin. alaabta ceeriinka ah waxay ku badan yihiin wadamada aan horumarsaneen, taa oo loo yaqaano raw materials, laakiin shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah waxay u bedelaan marka dambe tacab bisil ka oo la iibin karo oo afka qalaad lagu yiraahdo finished goods. saddex waxa ay helaan suuq cusub. marka ay soo degaan wadan aan wadankooda ahayn waxay helaan suuq cusub, waxa ka yaraada tartankii ay kula jireen shirkadaha la asaagga ah ee wadanka ay degnaayeen. afar waxay ka nastaan ciladaha gudaha. marka ay ku yaaleen wadamada horumarsan oo ah dalalkooda waxay la kulmayeen tartan adag, siyaasadaha dawladda, culaysyo dhanka gudaha ka yimaanayay iyo tirakoob joogto ah oo mar walba lagu hayay shaqaalahooda. marka ay yimaadaan wadan kale dhammaan waa ay ka yaraadaan ciladahaasi. dhanka kale waxaa jira dhibaatooyin ay la kulmaan shirkadaha qaramada badan, waxaana ka mid ah kow luqadda waa midda ugu muhiimsan oo ah tee dadka kula xiriir lahaayeen. meeshaasi waxa ay dhibaato badan kala maraan sidii ay isku fahmi lahaayeen dadkan ay soo dhex degeen. labo diinta iyo dhaqanka dunida waxay ka tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo qofka uu aaminsan yahay caqiide ahaan. mar walba shirkaduhu waxa laga yaabaa in shaqada ay hayaan iyo dhaqanka iyo diinta wadanka ay degeen inay iska hor yimaadaan, taana waxay ka mid tahay caqabadaha ay mar walba la kulmaan. saddex canshuurta iyo qawaaniinta. afar la'aanta maareeyaal xirfad leh. shan wadaniyadda. toddobaadkan barnaamijka ganacsiga waa iganta waad ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaad idinka tegaysaa nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fi amaan illah.